maanta halkan waxa isku yimid sidaad aragtaanba waa saddexdii xisbi qaran weliba ay nala joogaan laba muxuu ahaayey musharaxiinta madaxweynaha u tartamaya runtii dee waxa maanta isugan keenay wax kale maaha waa hal qodob uun halkaa qodob oo ah muxuu ahaayey siday la wada socotaan khamiistii waxaa ka dhacay muxuu ahaayey degmada ceelafweyn magaalada darweyne dagaal ku dhex maray laba beelood oo wadega ee walaalaha wadega degmada ceelafweyn marka xisbiyada qarankuna dee tartan ha ka dhexeeyo oo tartan gudahooda ah ka dhexeeyo laakiin arrimaha qaranka iyo wixii dee dalka nabadgeldarra u soo jiidaya isku mid baanu ka nahay muxuu ahaayey qarannimada iyo nabadgelyada iyo wadajirka shacbiga reer somalilandba isku mid baanu ka nahay oo tartanka gudahayaga naga dhexeeya badanaa muxuu ahaayey kuma kala tagno wixii qaran ee danta guuda saa daraaddeed maanta waxaan halkan markaa aan isku nimi oon markaa halkan uga soo jeedinaa baaq dheer oo nabadeed beelaha dega muxuu ahaay degmada ceelafweyne ku dagaalamay baaq nabadeed baan halkan uga soo jeedina haddaan nahay axsaabta qaranka oo aan leenahay muxuu ahaayey dhiigga iyo colaadda iyo magaran saaxabadda joojiya runtii dee waxaad og tihiin in abaar baani dalka soo martay oo markii ay abaartu jirtay ee xoolihiida ka leedeen nin walba uu cararay meeshuu de wax ka hela u cararay waa tii danta isku kin keentay maanta markii ilaahay nimcadiisa inoo shubay ee raxmaadkiisa inoo shubay ee barwaaqowdeen halkaad ilaahay go xamdi naqi lahaydeen inaydu maanta haddana xabad iyo colaaddii iyo dhiiggii markii hore ka heshiisan aad soo celisaan runtii dee waa arrin gef aan u aragnaa marka iyada oo dee wakti xasaasi lagu jiro doorashooyinkiina nagu soo fool leeyihiin doorashooyinkiina aynu u baahan nahay inay si nabadgelyo ah oo wanaagsan ay nagu dhacaan arrintan dee colaadan soo noqotay inay nabadgelyo darre keenayso ayaa markaa aanu baaq nabadeed u dirna oon leenahay colaadda joojiya intii dhammatayna aan u tacsiyadeynaa leen ilaahay ha u naxariisto kuwa dhaawacmayna aanu leenahay ilaahay caafimaad sareecana ha siiyo inta hadhayna aan leenahay caqligu ha shaqeeye yaanu shaqaynin muxuu ahaayey muxuu ahay cunfigu yaanu shaqaynin hore waa tii dee somaliland dhan u gurmatay muxuu ahaayey nabadda lagu soo kala saxeexday inay soo noqoto runtii may ahayn marka waxaan u jeedinaa baaq nabadeed inaad colaadda joojisaan nabadgeli darradana joojisaan muxuu ahaayey nabaddii iyo wadajirkii iyo dee waaltinimada ku nooleedayna aada soo celisaan insha allah biidnillahi alkariimna ilaahay waxaan ka rajeynaya inaanay intaa ka baryaanay intaa dhacday mooyaane wax kale oo kale aanay dhicin ciidamada joogay ku kala dhex jirana waxaan leenahay amniga idinka ayaa ka mas-uule ciddii gardaran dee inta laisku soo gaarayo muxuu ahaayey amniga ilaaliya golaha guurtida iyo salaadiinta iyo madax dhaqameedka iyo ciddii kale ee haldooreemeed maanta reer somalilandna waxaan ugu baaqaynaa inay ka qayb qaadato colaadda si loo debin lahaa muxuu ahaayey wixii dhacayna looga heshiin lahaa ayaan iyagana usoo jeedinaa ilaahayna waxaan ka baryayaa inaanay wax dambe dhicin doorasho xor oo xalaalna inoo dhacdo oo si nabadgelya inoogu dhacdo labadii gobol ugu dambeysay bay ka bilaabmi doontaa kaarbedelku ay markaa ceelafweyne ka mid tahay goobada sanaaga iyaduna ay ka bilaabmayso marka ma doono wax kasta oo nabadgel darro amba xumeynaya electionkana amba doorashadana inay wax kastoo dee xumaan ku keenaya inay dhacdo ma doonayno saasaa maanta axsaabta iyo dee ragga musharaxiinta haba soo kicisa dareenkaa iyagoo ka xun wixii dhacay ayaa soo kiciso marka maanta halkan isu keentay halkan si aragtaan cabdinaasirna idiin sheegay waxaa fadhiya saddexdii xisbi qaran ee somaliland oo matalaya dhammaan shacbiga reer somaliland markaa fariintani waa fariin ka socota dhammaan shacbiga somaliland ay matalaan saddexda xisbi qaran waxaa laga yaabaa baaqayo keli ah inaanu hore u soo gudbinay
oo ku saabsan shaqaaqadii ka dhacday darar weyne berihii ugu dambeysayna gobolka dhowr jeer baa ka dhacday colaadi waxaanu si wada jira ugu baaqaynaa walaalaha wada degan gobolkaas ee ehelka ah ee albaabtiga ah ee xididka ah ee isku deegaanka ah ee isku guriga ah in la joojiyo colaadda in la joojiyo dagaalka in la joojiyo cunfiga in la soo celiyo xasiloonida iyo walaalnimada iyo nabadda waxaynu ku jirnaa nimco eebe abaartii way naga jabtay ilaahay yahay inaynu mahadnaqno oo nimcadaa ina siiyey ku mahadnaqno waxaan ku adkaynaynaa dhammaan shacbiga gobolkaa wada degan ee laga yaabo dee in dhibaatadu ku fidaba inay arrintaas caqliga soo celiyaan nabadda ka taliyaan wixii dhintay ilaahay ha u naxariisto waa tacsiyadeynaynaa markii hore waa tacsiyadeynay dhammaanteenna samir iyo iimaan ilaahay naga siiyo qof udha kama maarano somalilan oo inagaga dhinta nabadgelyo darro iyo caqli darro kuwii dhaawacmayna ilaahay caafimaad ha siiyo xukuumadda somalilan iyo ciidamada qaranka waan ku bogaadinaynaa dowrka ka ciyaareen nabadeynta waxaan iyagana ku xoojinaynaa in inta nabad la helayo la xoojiyo nabadgelyada waxaan ugu baaqaynaa dhammaan waxgaradka somalilan hadday yihiin madaxda dhaqanka hadday yihiin guurtida iyo hadday yihiin qaybaha kale ee bulshada oo loo bahan ya inay ka qayb qaataan dhalinyarada dumarka qayb kasta nabadeynta inay ka qayb qaataan waxaanu u baaqaynaa iyaga laftigoodana inay u gurmadaan sida ugu dhaqsaha badan maanta berito aanay ka dambeyn gurmadkaasi laga shaqeeyo sidii noo nabadeyn lahaa waxaynu ku jirnaa howlo qaran oo aynu ognahay inay maanta culays badan inagu hayaan oo ah qaadashada kaadharhka codaynta ama codbixinta oo gobolka sanaag iyo gobolka soolba ka bilaabmaya marka gobolka maroodijeex dhammaado iyo gobolka togdheer oo ay harsan tahay hal wiig oo quri wiiga kadib waxaa ku xiga labadaa gobol waanu u baahan nahay inuu nabad ku qaadano kaadharhka wax kastaa waxay nagaga xidhan yihiin nabad somalilan waxaana ilagu ammaanaa aynu kaga duwannahay soomaalida inta kale waa nabadda inaynu wada guntano inaynu colaadda ka fogaano inaynu islaamnimada laftigeedu inagu adkaynaysaa in cunfiga la joojiyo oo qof gardarre lagu dilaa uu xaaraan yahay qof muslina dhiiggiisa in la xalaashado lagu dilo gardarro aan waxba samaynin waa xaaraan marka waxaynu u baahan nahay in nabadda soo celino axzaab ahaan kolley wax naga go-an inaanu arrinta nabadeynta si buuxda uga qayb qaadano oo baaqani ugu horeeyo dhammaan qaybaha bulshada ku howlan hawshaasna aanu gacan siino hadday guursi tahay hadday madaxda dhaqanka tahay hadday ciidamada tahay iyo hadday xukuumadda tahayba inaanu gacan ku siino waa naga go-aan walaalayaal waxaan idinku baaqaynaa nabadda inaad soo celisaan inaad u dhega nuglaataan ergooyinka laga yaabo qaarna idin la joogaan qaarna idinku soo socda culimada laftigooda door muhiima uga banaan hawshan waan ugu baaqaynaa inay ka qayb qaataan dhammaantiin aan isugu tagno nabadeynta deegaankaas iyo deegaankii kale somaliland dee dhibi ka dhacdaba